waxaan jeclahay inaan u faa'iideeyo dadka Soomaalida ah inta badan wax ma akhriyaan laakiin way maqlaan oo quraha Soomaalidu halkan waxaa ku arkaysaan waa wadanka Brazil wadanka Brazil waa wadan aad u ballaaran kulley caasimadiisana Brazil iyo wada aragtaan aan sii socdo waxaan tegaynaa meesha dhul ahaan Brazil intuu leeyahay iyo dad ahaan warka meesha ay ku qoran tahay Brazil total waa meeshan hadda aan farta saaray koobiga aan ka noqday meeshaas weeye waa dhulka waa 8,515,767 kilomitir weeye dhul ahaan markii la yiraahdo population kana waa 200,129,129 weeye waxaan tegaynaa qaaradda Yurub midowga Yurub waatan waxaan soo qabanaa midowga Yurub European Union waa kan midowga Yurub hadaad maqashaan wadamada Yurub la yiraahdo maapkooda waa kaas calankooda waa ka wadamo badan ayay ka mid yihiin Yurub wadamo badan baa ku midoobay 28 wadana 28 wadan halkan ay ka bilaabma waa kuwan member states waa 28 wadan oo intaas wadan arki kartaan xataa Ingiriiska ka mid yahay waad arkaysaan bal aan eegna hadana dhul ahaan inta leegiin dhul ahaan waad aragtaan waa 4,475,757 kilomitir population kana waa 511,805,808 dadka Soomaalida waxaad moodaa markii la yiraahdo wadankaas ka waran qaar baa waxay oranayaan Brazil iyo wadanka la yiraahdo Faransiiska ama Jarmalka waxa weyn Faransiiska ama Jarmalka iyo Brazil yaa weyn hadda tirada ka weyn waxa ku oranayaan Jarmalka laakiin Brazil waxay ka weyn tahay midowga Yurub ayay 2 jeer ka weyn way ku laba laabmaysaa waana hal wadan ba u taqaanaan kooxdeeda hal wadan ba u taqaanaan halka midowga Yurub ay ka imaanayaan kooxo aad u fara badan marka sidaa loo fahmo